بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. kolley waxaan isku dayayaa inaan bal ka shaqeeyo ama yara taataabto exaamkii ku jiray networka qayb ka mida oo gaar ahaan labo, markaa intuu ilaahay garansiiyo ayaan insha allah bal taataaban. haddaan garan waayana waa nafteyda, haddaan gartana alxamdulilah. mid wuxuu ahaa war router ku xidhan yahay switch, I think two switch bahay two switch ku xidhan iyo kombiyuutaro ku xidhan yihiin labada dhinacba. then xarigga soo qaadano fast internet 0 ayaan ku xidhanaa, kana waxaan ku xidhanaa fast internet 1. inaan programino mayna ran karayna insha allah isku dayno. I think inuu sida ahaa kolley intuusan noqon waayana waxaan uga dan leenahay koodhka haddii 4 yihiin, haddii 2 yihiin, haddii 10 yihiin, koodhka sida loo qorayo waa isku mid insha allah. waxaan isku daynaa inaan koodhka qorno, markaa hadba intuu yahay iyo koodhka sida loo qorayo I think waa isku wada mid. saas awgeed waxaan kasoo qaadanaa 3 kan walba 3. haddaba waxaan programino routerka in order to go si inoogu shaqeeyo. enable config ama configuration terminal saana loo soo qabsadaa. host nameka haddaad saasgeed ACT iyo haddaad magaca bixiso isku mid. waxaan oranaa villa1, waxaan oranaa magac bixinna css, waxaan haddana oranaa inti fast internet ama interface fast internet 0/0. IP addresska waxaan oranaa 192.168.1.1 255 qasmnimaadkii 255.255.0. waxaan noo shut headaming ama noo shut down waa isku mid daming. markaasaa orano wakaa waashidmaya wakaa waashidmaya waa soo socda. mar baan ka baxaynaa si aan DHCP-giina ugu qorno, markaa mar baan oranayna exit exit. marka waxaanna ip DHCP full, waxaan oranaynaa villa1 ama qaybta koowaad networking 192.1. halkan waa enable, halkan aan maray serverka waxaan u bixiyay qaybta koowaad. waxba kama maqno, I think anaa qalday, waxba kama maqno 0. halkaasaan qalday 192 may ma qaldin, waxaan qalday halkaas 192 waxaan ka dhigay 912, markaa waa iga qalad.
waxaa horeeya network. net markaa qorto tab taabatid network isaga isbuuxinaya ama isaga is dhamaystiraya 192.168.1.0 255 no I think that's one sana 255 terminaadkii 255.255.255.0 waka laakiin marka hore haddaad arkaysaan waxaan ka dhigayay 912 baan ka dhigay laakiin waxa weeyaan 192 wanka hore terminaadkii markaa qorto waxaa qorta defaultiga waxaa oranaysaa 192.168.1.1 that's isagu terminaad male default terminaad male isagu saasaa ka baxaysaa ma ka baxdeen DNS-kii waa qoraysaa DNS serverkii waxa weeyaan horan kartaa ama 4.4.4.4 ama nambarada mid baad dooran kartaa ikhtiyaarka adigaas kale imika waxaan dooranayaanu 2 ama 3 aan ku eegno .3 afar jeer ma ka gaarsiinaysa waka waan qornay waa exit baa oranaysa markaa exit tiraadin waxaa qoraysaa inta store inta loo kaydinaya I think sax inta loo kaydinaya qoraysaa sax inta loo kaydinaya qoraysaa inta loo kaydin ma qortay waxaa qoraysaa 192.168.1.40 ilaa iyo waxaa ka gaarsiisaa 192.168.40 ilaa iyo 150 kaydi micnaha meel dhig iyaan la taabanin iyaan la isticmaalin waka show run itus show run ma exit jafarta kabax waad ka baxaysaa markaa oranaysaa show run waka excluded ama storeku ama inta loo kaydiyo waxa weyn 40 ilaa iyo 150 ma fahanteen markaa waa DCP-guna halkaas waxaan bixiyay qaybta koowaad waa kan IP address waa 1 I think then waxaan haddana isticmaalaynaa exit iga saar haddana exit ma tiri haddana exit laba jeer baa ka baxaysa sax waxaa oranaysaa enable waxaan qoranaa qaybtan imika qaybtan waan dhameeyey sax haddana waxaan qorayaa qaybtan I think inaad fahmi doontaan insha Allah isku dayaa configuration terminal sax waxaa qoraysaa kani wuxuu ahaa fast internet 0/0 ku xidhnaa laakiin kan wuxuu ku xidhan yahay fast internet 0/1 sax sayda saada insha Allah waxaan interface fast internet 0. ama /1 waka midna ogaada oo haddaan imika hostiname idhaahdo haddaan idhaahdo aan u bixiyo engineering haddaan u bixiyo oon haddana idhaahdo IP address ma noqonayo oo idiidiya daawan 192.168.155.55.0 wakaa weydiiday
sababtu maxay tahay hadda? Sababtu waxay tahay interface-ka iyo IP address-ka isku xiga. IP address wuxuu garanayaa interface path internet 0/1 laakiin ma garanayo hostname engineering ma garanayo. That's why buu oranaya file. Then iminkaan orana hostname engineering صح وصح okay عندنا حرمسا int path internet 0/1 haddaba AP address imkan gelina daawo waa yeelaya sababtoo ah wuxuu garanayaa kan ku xiga wuxuu akhrisanayaa kan ku xigaad qortay kii kan ka horeeyay qortay akhrisanaya 192.168.2.1 2.1 subnamaadkiisa aan qorno 55.0 imika waa yeelaya wakaa u yeelay sax. marka hostname-ka markaad magaca u bixinayso iyo IP address-ka hay isku xijisiin sidaa u fahmo insha allah walaal soo fahmo ما قرن وحن أرن نوشاد هدمين نوشاد وكان exit كبح وحن قرأ DCB فوق قيبت لواد ما فهمتين engineering DCB يسوف نقول قيبت لواد waxaan qorayaa networking 192.168.2.0 255.255.255.0 waa sax waayo kalaale. waxaan qorayaa defaultigii gateway-gii ama default router halkuu routerka kasoo galayay 192.168.2.1 halka mid koowaad kasoo galay. DNS-kii baan qorayaa. DNS-ka kan waxaan u isticmaalay kii hore waxaan u isticmaalay haddaad arkayseen 33 imika kan waxaan isticmaalayaa 666 marka numberka aad isticmaasho adig ku jirta ama dee adiga khaas ku tahay ikhtiyaarka adiga iskale haddaad 2 isticmaasho 3 isticmaasho 4 isticmaasho 5 isticmaasho accept taas adig ku jirta. DNS-kii ma qoran waxba ma hadhin ma fahanteen. DNS-kii default-kiina ku qoray DNS-kiina qoray maxaa hadhay exclude-kii baa hadhay. horta exit yaradhe ka yara bax qaybtan ka bax qaybtan way shaqaynaysaa 0 ka bilaamaysaa way shaqaynaysaa. markaad exit tiraadid waxaa oranaysaa DCB excluded. hadda inteen ku kaydintii baa hadha 192.168.2. kii hore waxaan kaydsanay 40 kan waxaan kaydsanaynaa 60 ilaa 192.168.2.60 ilaa iyo I think 200 aan oran karnaa ilaa 120 dheh intaa iga taabanana i kaydiya. exit show run okay. IP address DCB ama excluder-ki ama store-ki kii hore qaybtii koobaad waatan qaybtan koobaad waxaan u kaydinay 40 ilaa iyo 150. qaybtii labaad waxaan u kaydinay 120 ilaa iyo 60 ma fahanteen. DC poolka waxaan ku bixinaa qaybtii koobaad waa tii kii hore ma fahanteen. waa kan DNS-kiisu 33 buu ahaa halka ka kale DNS-kiisu ahaa 66 waa kan
dns-kiisu 66 waa kan interface-kiisu waa 2 ka kale interface-kiisu waa 1 ama waa 1 صح وهذا imika waa shaqeynaya labaduba waa shaqeynayaan han eegno inay shaqeynayaan insha Allah waxaan isku ortaa intaanan eegin waxaan ka dhigaynaa halkan intaan galno desktop-kiisa galno aan halkan galno ayaan ka dhigaynaa DCP waxa horena ka successful kana ka dhigno kana automatic DCP it means automatic automatic soo qaad waayo waan soo programming waa automatic u qaatay waa kan DCP center kan automatic u qaatay kana geeno waa automatic u qaatay kana geeno kana waa 4 halkaas wuxuu noqonayaa 4 waa 4 waa DNS-giis 33 kana DNS-giis wuxuu ahaa 466 marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh